qaybtan muraayada glass ah waxay u muuqataa mid caadi ah, laakiin dab ahaantii waxaa lagu sameeyey tiknoolajiyad casri ah oo aad u horumarsan. Markii haweenaydu sheegtay in kaaliyaha ay holography la dhameeyey, dadkii dhagaystayaasha ahaa waxba ma arkaan, waxayna noqdaan kuwa wareersan. Lamaanaheeda xitaa si toos ah ayuu uga dhex socdaa jirkeeda. Markaas ayaa la ogaadaa in ninkaasi yahay ay la soo bandhigay oo la yiraahdo Bill. Muraayadan gaarka ah ayaa ah meesha uu ku muuqdo. Caadi ahaan si aad u aragto Bill waa inaad xirataa muraayadahaas, laakiin hadda weli waxay ku jirtaa marxalad tijaabo ah, mana gelin suuqa si rasmi ah. Markii kulankii dhammaaday, Bill wuxuu u diraa fariin. Wuxuu sheegay inuu ogaaday dad daba socda oo doonaya inay helaan muraayadaha. Haweenaydu si degdeg ah ayay u xirataa muraayadaha, Billna markiiba ayuu ka soo muuqdaa hortooda. Wuxuu ku xirmaa nidaamka autopilotka gaariga isagoo adeegsanaya awooddiisa xisaabeed. Wuxuu falanqeeyaa wadooyinka baabuurta kale, wuxuuna ku farageliyaa kuwii daba socday. Markii xaaladdu adkaatay, waxay go'aansadaan inay ka tagaan gaariga oo ay ordaan. Haddii ay sidaas sii socoto, muraayadaha waa la qaadi doonaa. Bill wuxuu ku yiraahdaa, eeg hareerahaaga oo sii muraayadaha qofka aad ugu kalsoon tahay. Markaas ayuu Bill arkaa qof gaar ah. Isla waqtigaas xawaarihiisa fikirka processing speed si aad ah ayuu u gaabis noqdaa ilaa haweenaydu ay mar kale ka dhex socoto jirkiisa. Ugu dambayn waxay raacdaa tilmaamtiisa, waxayna si qarsoodi ah ugu ridaa muraayadaha boorsada haweenay kale. Maalintii xigtay, haweenaydaas waxay ogaanaysaa muraayadaha iyadoo ka feega iibsanaysa. Iyadu waxay ka shaqaysaa shirkad samaysa muraayadaha, laakiin weligeed ma arag noocan oo kale ah. Muraayaduhu sidoo kale waxay bilaabaan inay baaraan xogteeda. Kadib waxay isku daydaa inay xirato. Inta ay taas samaynayso, kafeega ayaa diyaar noqda. Markay rabto inay baxdo, qof ayaa gadaalka ku dhufta kafeegii oo dhan ayaana ku daata. Way ka xumaataa, waxayna u jeesataa inay waraaqa ku masaxdo. Laakiin waxay aragtaa in dharkiisii uu qalalan yahay gebi ahaanba. Way yaabtaa. Bill ayaa leh, waan fiicanahay. Muraayaduhu si fiican bay kuugu eg yihiin. Markay iska bixiso, Bill si lama filaan ah ayuu u baaba'aa. Way wareertaa waxa dhacay, laakiin waxay go'aansataa inay shaqadeeda u dhaqaaqdo. Xafiiska markay tagto, madaxeeda ayaa horay ugu dhacda. La yaabka leh, inkastoo ay aragtay, haddana ma caawiso. Madaxa ayaa indhaha ka eegta, waxayna xasuusataa wejigeeda. Markii ay xafiiska dib ugu noqoto, waxay bilaabtaa inay ku dhibto shaqada, inkastoo haweenaydu u muuqato mid aan waxba ogeyn. Dab ahaantii waxay qabtaa cudur la yiraahdo fear blindness, ma aqoonsato wejiyada dadka. Wejiyada dadka oo dhan waxay ugu muuqdaan kuwa qasan, taas ayaana keentay in dadku u arkaan qof iska fog. Iyadoo niyad jabsan, waxay xasuusataa muraayadaha. Markay mar kale xirato, codkii ayaa soo noqda. Markuu Bill soo dhawaado, waxay isku daydaa inay taabato, laakiin waxba ma qabato. Markay kor fiiriso, gacmaheedu hore ayay uga dhex gudbeen jirkiisa.